waxaa saacadihii aynu ka soo gudubnay ay warbaahinta caalamku hadalaysay madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilhan Aliyev oo xaaskiisa u magacaabay inay noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa. Madaxweyne Ilham ayaa u magacaabay xaaskiisa Mehraban in ay noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa, waxaana dad badan ay arrintan ku tilmaameen arrin aad u foolxun oo muujinaysa rabitaanka madaxweynaha ee ah in qoyskiisa ay gacanta ku wada dhigaan talada waddankaasi. haweeneydan hadda loo magacaabay inay noqoto madaxweyne ku-xigeenka dalka Azerbaijan Masters Mehraban waa 52 sano jir, kana mid ah xubnaha baarlamaanka dalkaasi, waxaana sidoo kale ay haweeneydan madax ka tahay urur samafalka ka shaqeeya. madaxweyne Ilham ayaa talada dalkaasi hayay laga soo bilaabo bishii Oktoobar ee sanadkii 2003, waxaana xilka kala wareegay aabihiis oo mar dalkaasi ka soo talinayay. dalka Azerbaijan ayaa dhaca qaaradda Aasiya, waxaana dadka ku nool dalkan lagu qiyaasaa 9.862 milyan oo qof.